murugada iyo xanuunka badan uu reebay qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe 14 bishan Oktoobar ayaa noqotay mid aan qulubta dadka Soomaaliyeed wali aanan ka bixin. qaraxaasi waxa noloshooda ku waayay dad ku dhow 400 oo qof oo qaarkood xitaa aan la helin hilbahooda iyo xubnaha jirkooda. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay boqolaal qof oo kale oo qaarkood ku waayeen xubno muhiim u ah jirkooda. Allah naxariiste dadkii tirada badnaa ee qaraxaasi noloshooda ku waayay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamuud Siyaad Yariisow. Cabdullaahi Yariisow ayaa ahaa nin xoogsata amba ka shaqayn jiray dalaalnimada geela ee degmada Afgooye. waxaana Cabdullaahi dhimashadiisa ahayd mid xanuun badan, waxaana xusid mudan in xitaa aan la helin hilbihiisa, iyadoona qoyskiisa maalmo badan ku qaadatay sidii u heli lahaayeen nolol iyo geeri. waxaana ugu dambayn dantu ku qasabtay in ay iska qoostaan kadib markii ay waayeen xataa xubno jirkiisa ka mid ah si ay u aastaan. naxtinta geeridiisa reebta marxuumkan ma ahayn mid aad u yar, wuxuuna ifka kaga tegey 30 carruura uu dhalay, una badan kuwa aad u yaryar oo qaarkood umusha lagala soo baxay. waxaana carruurta Cabdullaahi uu ka dhintay 25 ka badan ay yihiin kuwa carruura oo qaangaarin. waxaa maanta booqannay 27 ka mid ah carruurtii uu ka dhintay Cabdullaahi Yariisow oo ku nool xaafadda Raadeelka ee degmada Dayniile. waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa 4 ka mid ah xaasaskii uu ka geeriyooday iyo weliba hooyooyin kale ay kala tageen marxuumka balse u haya carruur kala duwan. carruurta qaarkood oon la hadalnay murugo badan ayaa wejiyadooda ka muuqatay, qaarkood wayba ku adkeed in ay hadlaan, ilmo ayaa indhahooda ka socotay. waxay dareemayeen murugada iyo xanuunka ay ka dhaxleen geerida aabbahood ay si aada u jeclaayeen. ma jirin wax hantiya uu kaga dhintay Cabdullaahi Yariisow, Allah u naxariistee carruurtiisa 30 gaaraya iyo hooyooyinkood. carruurta ayaana isugu jira kuwa iskuulla iyo dugsiyo quraan dhigta, waxaana hadda qaarkood laga saaray dugsiyadii iyo iskuulladii ay dhiganayeen kadib markii ay waayeen cid ka damaanad qaada bixinta qarashaadkii uu aabbahood ka bixin jiray. carruurtan aabbahood Soomaaliyeed waayey ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehan karaa murugada iyo xanuunka, waxayna iminka isku dayayaan in ay bartaan dhibaatada ay leedahay nolosha aabbala'aanta. Maxamed Maxamuud Siyaad Dhagweyne oo la dhashay marxuumka geeriyooday ayaa ii sheegay in ay dareemayaan murugo aad u badan oo ka dhalatay geerida walaalkiis. meeshaas ka dhacday dhib baan naga soo gaaray. waxaa walaalkay ayaan ku waayay aniga, maxaa la yidhaahdaa ummad fara badanna waa ku laatay. Allah u naxariisto. walaalkay lama arkin, asigii macal gaarigiisii waxba kama arkinin, hilib xataa ma arkin, cadkiisa ma arkinin, gaarigii wax kama arkinin. laakiin inuu eriyada soo galayna waa la sheegay oo saydiyaan uu soo dhaafay wax yar ka hor qaraxa inuu soo galay meeshaas qofku ku soo dhijiyaan soo wacay. maxaa la yidhaahdaa wax meeshaas inuu ku tagay ninkaas ayaa maaragtay ninkaas 2 bil 3 bil aan raadinayna oo waxna aan weyno meelka ka weynay wax dhaawac isbitaalka sida tageynay. waa markii dambe hadda waa iska quusan. marka Allah u naxariisto. Cabdullaahi wuxuu ka tagay 4 xaas oo ka tagay iyo 4 xaas oo ka tagay oo carruur leh 4tooda iyo 4 xaas oo kale oo asaga noloshiisa ku tiirsanay oo laakiin qaban carruur u haysay. ayaa carruurta guud ahaan meeqay gaaraysaa? guud ahaan 30 carruura. asiga kaliya u dhaqdhaqaaqay u shaqeynay? asiga baa carruurtiisa dabaranay. qof u kaalmeeyay ama wax ka caawinaysay oo kale ma jirto. asiga baa carruurtiisa haystay waana ku asturay xaqiiqdii oo ku asturay. hooyooyinka uu ka geeriyooday marxuumkan qaarkood oon isku dayay in aan la hadlo ayaa waxaa ku adkaa in ay hadlaan. waxaa wejiyadooda laga dareemayay murugada xanuunka badan ay dareemayaan. waxaana hooyooyinkaasi ku jira 2 ka mid a lii sheegay in ay iminka xaamilo yihiin amba ay uur leeyihiin. waxaa sidoo kale carruurtu Cabdullaahi ka geeriyooday ku jira cunug dhowaan umusha lagala baxay. ma jiro cid iminka garab taagan amba u gurmatay marxuumkaasi carruurtiisa, waxayna ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya
dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta meel kasta ay joogaan in ay garab siiyaan gacanna ka geystaan ka farxidda carruurtaasi musiibadii qaraxii Zoobe uu ka soo gaaray murugada aysan weli hilmaamin kadib markii aabbood ay halkaasi ku waayeen. magacaaga sheeg magaca meeqa sano jirtaa meeqa sano 4 sano jirtaa هيا أبا مقعيس أبا مقعيس بلا ما لا أو أباد أو قرح زوب وقول أنت يا كو شيء يا كو شيء هيا محاضر أنت هذا مركي أبو أنت الأولى لب ما دري أنت هيا أبو محوكو كين يجري مركو قولي ما أبو ننع وحمكو كين يجري نو هاي دكس من يتا فرانك تمرين تمرين haddaba cid allaale cidii doonaysa inay ilmaan agoonta u gargaaraan waxay kala xiriiri karaan adeerkood maxamed maxamuud siyaad dhegweyne oo laga helo taleefankan 25255079 eberhal amba nadiifa daahir iidow oo ka mid ah hooyooyinka carruurtan oo iyana laga helo 252559 eberhal 34. haddaba haddii aad daawato warbixintan waxaan kaa codsanayaa haddii aadan awoodin inaad carruurtan agoonta amba dadkii dhibaatada ka soo gaarta qaraxii Zoobe aad wax u tarto fadlan sheergaree oo gaarsii madaxda dawladda iyo dad walba oo Soomaaliyeed ee doonaya in ay gacan ka geystaan carruurtan dhibaatada xanuunka badan ka dhaxlay qaraxii murugada iyo urkutaalada lahaa ee ka dhacay isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman.